wakiilada hay-adaha caalamiga ah, wasiirada dowladda Itoobiya, wasiirka dastuurka dowladda federaalka iyo uu hogaaminayo, xildhibaanada federaalka, haweenka, dhalinyarada, madaxda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta kale ee madashan ku sugan, waxaan idin soo gudbinayaa salaam diiran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ramadaan mubaarak. mudane gudoomiye, waxaan marka hore bogaadinayaa hoggaanka golaha wakiilada isbeddelka quruxda badan ee lagu sameeyey xarunta golaha wakiilada. mudane gudoomiye, mudanayaal, waxaan ku faraxsanahay ka soo qaybgalka furitaanka kalfadhiga 39aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland anigoo raacaya dastuurka Puntland. haddii aan warbixin kooban idinka siiyo waxqabadka dowladda muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi, mudanayaal, dowladdu waxay qabatay shaqooyin badan kuwaas oo taabanaya dhinaca ammaanka, siyaasadda, kor u qaadidda iyo tayeynta haykalka dowladnimo, dhiirigelinta ganacsiga, dhaqaalaha, dhowrista iyo daryeelka deegaanka iyo maaraynta khayraadka badda, kor u qaadista iskaashiga caalamiga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha. xaaladda nabadgelyada. mudane gudoomiye, mudanayaal, sida aan wada ogsoonnahay Puntland waxaa lagu soo qaaday duulaan wejiyo badan leh oo ugu dambeeyey duulaankii saldhigga ciidamada daraawiishta ee af urur si loogu waxyeeleeyo nabadgelyadeenna iyo jiritaankeenna. mudanayaal, sida aad la socotaan waxay dowladdu ku dhawaaqday 9 Juun 2017 dagaal ballaaran oo loogu sifaynayo Puntland burcadiimeedka al-shabaab, waxayna ciidamadeennu u diyaarsan yihiin inay u dhaqaaqaan goob kasta oo ay ku dhumaalaysanayaan al-shabaab. waxaana hubaala inay ka qoobamayn doonaan shacabkii iyo askarteennii ay waxyeelada u geysteen iyagoo ilaahay dartii u soo maraa. mudane gudoomiye iyo mudanayaal, Puntland ma oydo ee waa aarsataa. sidoo kale mudanayaal, waxaa lagu qabtay magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boosaaso qaraxyo waaweyn oo lagu dhibaatayn lahaa shacabka Puntland ee qaaliga ah, waxayna dowladdu abaalmarin iyo dalacsin u diyaarisay ciidamadii qabtay qaraxyadii Boosaaso iyo Gaalkacyo iyo mujaahidkii ku dhintay qaraxii Boosaaso oo dowladdu qoyskiisa u diyaarisay damaanad qaad nololeed. sidoo kale dowladdu waxay hirgelisay ururta gorfaynta amniga, barnaamijka sharciga iyo kala dambeynta laamaha booliiska, dhismaha iyo furitaanka xafiiska laanta socdaalka iyo jinsiyadaha. mudanayaal iyo marweyn, waxaa hadda ka socda guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland howlgallo lagu sugayo nabadgelyadeenna iyo xasiloonideenna, annagoo adeegsanayna awoodeenna ciidan isla markaasna kaashanayna shacabkeenna. waxaana naga go'an in aysan argagixisadu magaalooyinkeenna ku yeelan xarumo ay ku cabsigeliyaan shacabkeenna. mudanayaal, muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi ee baarlamaanka waxaa socday hannaanka isku dhafka ciidamada federaalka Soomaaliya oo aan dhowaan doonayno in la howlgeliyo ciidan qaran ee Soomaaliyeed oo laga gudbo ciidan beeleedyadii watay magaca ciidan qaran. arrimaha maaliyadda. mudanayaal iyo marweyn, inkastoo ay jirtay abaar, haddana waxay dowladdu hirgelisay barnaamijka loo yaqaan EFMIS-ka kaasoo fududeeyay bixinta mushaarooyinka, adeega iyo raashinka intooda badan. waxaa tababaro loo sameeyey shaqaalaha wasaaradda maaliyadda qaybaheeda kala duwan. waxaa la dhammaystiray gurigii wasaaradda maaliyadda ee gobolka Mudug. sidoo kale waxaa la dhameeyey dhismaha wasaaradda maaliyadda ee Bandarbayla. waxaa kaloo dhammaystir ku dhow dhismaha xarunta wasaaradda maaliyadda ee Garowe. waxaana la diyaariyey xog kaydiyaha database iyadoo la dhigay kastamka garoonka Boosaaso iyo furdada Boosaaso. maadaama la hirgeliyey barnaamijka EFMIS-ka, waxaa kor loo qaaday ilaalinta kharashka iyo dakhliga dowladda Puntland. waxay dowladdu dib u habeyn ku samaysay canshuuraha biriga si kor loogu qaado dakhliga guud, sida meherada ganacsiga magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe, canshuurta mushaarka shaqaalaha rayidka ee magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe, iyo diyaarinta shuruucda canshuurta xawaaladaha iyo nootayooyinka. iyadoo dowladdu ka duulayso mas'uuliyadda ka saaran mashruuca JPLG, waxay si wanaagsan u dhammaystirtay dhammaan arrimihii u qorshaysnaa oo ay ka mid yihiin: diyaarinta qodobbada dowladda dhexe oo ahayd 10%, waxay wasaaradda maaliyaddu shubtay lacagdan 103,000 oo ah 50% lacagta laga rabay dowladda dhexe.
labo diyaarinta shuruudaha iyo hababka kala duwan ee lagu dalbanayo lacagta maadaama ay dowladdu maamulayso dhammaan lacagaha JPLG sanadka 2017 saddex diyaarinta mashaariicda muddadii u shaqaynayay mashruuca iyadoo loo qaybiyay dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmooyinka iyo hay'adaha kale iyo hay'adaha kala shaqeeya mashruuca afar diyaarinta qaybta labaad oo maraysa meel wanaagsan si loo dhammaystiro qoondada labaad ee mashruuca shan bilaabidda wada shaqaynta degmooyinka si kor loogu qaado hantidhowrka degmooyinka iyadoo ujeeddadu tahay in kor loo qaado tayada shaqaalaha ee baarayaasha heer degmo kor u qaadidda dakhliga degmada iyo adkaynta kalsoonida shacabka lix kormeeridda degmooyinka uu ka socdo mashruuca si loola socdo horumarka ka socda degmooyinka iyo in kor loo qaado isku xirnaanta dowladda dhexe iyo dowladaha hoose waxqabadka mashaariicda bangiga adduunka ee wasaaradda maaliyaddu maamusha maaraynta maaliyadda guud public finance management nidaamka maaraynta maaliyadda oo loo yaqaan public financial information system FMIS oo ka hirgalay 8 gobol oo Puntland ah sanadkan bilowgiisii labo tababar baasan oo la siiyey dhammaan waxyaha wasaaradda maaliyadda oo isugu jira tababarka tababarayaasha TOT training of the trainers heer gobol iyo hay'adaha dowladda waxaa tababarka lagu siiyey nidaamka maaraynta maaliyadda waxaana ka qayb galay shaqaale dhan 169 habkan maaraynta maaliyadda uu sahlay in lagu dhaqmo miisaaniyadda saddex wasaaradda maaliyaddu waxay heshiis la gashay shirkado caalami ah si loo tayeeyo shaqaalaha dowladda iyagoo diyaariyey howlgalka wejigiisii hore afar waxaa heshiis lala galay Unicom Limited oo company British ah oo kala shaqayn doona wasaaradda maaliyadda arrimaha canshuuraha xisaabaadka iyo miisaaniyadda shan waxay wasaaraddu qaadatay shirkad caalami ah oo loo yaqaan Ernst & Young oo tayeyn doonta hantidhowrka guud ee dowladda Puntland iyo guddiga dhaqaalaha ee baarlamaanka lix waxay dowladdu ku guulaysatay in mashruuca BFM-ka ee wasaaraddu maamusho uu qalabeeyo dhammaan laamaha bangiga Boosaaso Qardho Garowe Gaalkacyo iyo hantidhowrka guud si loogu fuliyo nidaamka FMIS-ka mashruuca RCRF waxaa mashruuca RCF ee bangiga adduunku laga caawiyey mushaarka 1200 oo macallin taasoo kor u qaadaysa tirada macallimiinta Puntland ee miisaaniyadda ku jirta wuxuu mashruucani tayeeyey habraaca mushaar bixinta hay'adaha dowliga ah ilaalinta hantida dowladda mudanayaal xafiiska hantidhowrka guud wuxuu si toos ah u fuliyaa baarista mashaariicda ku salaysan loo yaqaano Supreme Audit Institution ama SAI iyadoo la dhaqan gelinayo baarista iyo hubinta qorshaha miisaaniyadda maaliyadda ee mashaariicda ujeedada baaristan ayaa ah xaqiijinta lacagta mashaariicda ee la helay iyo kharashaadka la galay iswaafajintooda waxaa baaris lagu sameeyey xisaabxirkii dowladda ee 2016 wasaaradda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda deegaanka hay'adda qandaraas bixinta dowladda hay'adda daryeelka bulshada hay'adda astaynta iyo maamul wanaagga ee TV-ga Puntland mashaariicda bangiga adduunka ee ka fulisay 2016 iyo dowladda hoose ee Garowe arrimaha gudaha mudanayaal iyo marweyn dowladdu waxay si rasmi ah maamul-daadejin u gaarsiisay 10 degmo oo Puntland ah kuwaasoo hadda awood u leh inay iskood isku maamulaan una diyaarsadaan qorshayaashooda iyo weliba baahiyaha adeegyada ay u baahan yihiin dowladdu waxay diyaarisay shuruuc siyaasado iyo habraacyo lagu maamulayo dowladaha hoose sida shuruucda qaxootiyada iyo barakacayaasha dowladaha hoose ee Puntland habka ka qaybgalka qorshayaasha miisaaniyadaha ee degmooyinka iyo nidaamka barista shaqaalaha dowladaha hoose dowladdu waxay si dhammaystiran u qalabaysay xafiisyada 13 degmo oo kala ah Dangorayo Waaciye Rakaraaxo Ufayn Baargaal Alula Baran Dahar Boocane Buuhoodle Qodob Jiraan iyo Jiriiba waxaa la gaarsiiyey 20 mashruuc oo adeeg bixin ah degmooyinka Boosaaso Qardho Garowe Gaalkacyo Jiriiban Bandarbayla iyo Ay waxay dowladdu qabatay ololihii gubista xoolihii ku baktiyay abaarta waxaana la gubay bakti gaaraya 18486 neef oo iyadoo lagu gubay 3846 goobood
waxaa si joogta ah loola socon jiray dhaqdhaqaaqa dadka reer guuraaga oo ay xooluhu ka soo dhammaadeen kuwaasoo ku soo xarooraya magaalooyinka waxaana lagu qiyaasay 51,250 qoys bilihii November 2016 ilaa bishii Abriil 2017 dadkaas waxay ka soo quusteen noloshoodii caadiga ahayd waxayna ku biireen xeryaha barakacayaasha magaalooyinka Boosaaso iyo Gaalkacyo oo ah meelaha ugu badan ee dadkaasi ku soo xaroodeen waxaana loo bilaabay lacag degdeg ah cash intervention oo $140 qofkiiba loona wadayo muddo 2 ilaa 3 bilood sidoo kale waxaa Puntland gudaheeda lagu siiyaa dib u dejin $200 bil kasta muddo 1 sano ah iyo sidoo kale agabyada guryaha qof kasta oo qaxooti Soomaaliyeed oo ka soo noqday dalalka Yemen, Djibouti, Kenya, Uganda iyo waliba wadamada kale ee gobolka mudanayaal waxay dawladdu u samaysay qof kasta oo Yemeni ah oo qaxooti loo aqoonsaday lacag kabis ah bil kasta oo gaaraysa $120 iyo dhaqaale ay ku samaystaan ganacsi ama shaqo abuur iyo daaweyn lacag la'aan ah gurmadkii abaaraha mudanayaal Puntland waxaa soo maray abaartii Sima abaartaas oo saamaysay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto haddaba dawladdu waxay samaysay iyada oo ay iska kaashanayaan culimada samafalayaasha Puntland gurbajoogta iyo hay'adaha kala duwan ee ka howlgala Puntland gurmad biyood oo gaaraya 1,500,000 oo fuusto oo biyo ah iyo raashin loo qaybiyey 350,000 oo qoys oo kala jooga 102,000 oo goobood dhammaan gobollada Puntland sidoo kale waxay dawladdu dib ugu celisay deegaamadoodii qoysas ku soo hayaamay deegaanka Noobil ee gobolka Bari qoysaskaas oo gaaraya 1,120 qoys waxaana la kala geeyay deegaamada Ceelaf Weyn, Garadag, Caynaba, Mudug, Sool, Cayn, Sanaag iyo qayb ka mid ah gobolka Nugaal waxay dawladdu siisay 700 oo fuusto oo shidaal ah dadka iyagu la yimid gaadiid ay ku guuraan sidoo kale waxay dawladdu 46,000 oo qoys oo horay dhaafay u samaysay dib u dejin arrimaha caafimaadka mudanayaal iyo marwooyin waxay dawladdu dhamaystirtay qorshaha 5 sano ee horumarinta caafimaadka Puntland iyo xeerka xirfadlayaasha caafimaadka oo ay ansixiyeen labada gole ee dawladdu waxaa la hirgeliyey shaybaarka dambi baarista la xiriirta kufsiga loona tababaray 2 shaqaale oo lagu soo tababaray Nairobi muddo 5 bilood hay'adda MSF waxay ka howlgashay isbitaalka guud ee Gaalkacyo iyadoo shaqaale loo qaatay 150 qof waxaa sidoo kale laga wadaa isbitaalka guud qallimada hooyooyinka uu ku dhaco isku furanka waxay dawladdu ka hirgelisay 3 xarumood oo cusub oo lagu daaweeyo TB-da degmooyinka Dhahar, Balidin iyo Bandarbeya ilaa hadda guud ahaan tirada dadka soo booqda xarumahaas waxay gaarayaan 484 qof waxaa laga bilaabay gobolada oo dhan oo la talaal oo joogto ah waxaana la talaalay caruur gaaraysa 1,137,000 waxaana la sameeyey maaraynta xogta caafimaadka database online oo horumarsan laguna kaydin doono xogta caafimaadka kaasoo loo daalacan karo si online ah sidoo kale wasaaradda caafimaadku waxay gurmadkii abaaraha dirtay 113 kooxo caafimaad oo wareega mobile teams kuwaas oo waday nafaqo iyo daaweyn waxayna daaweeyeen 1,473,000 oo qof gobollada Puntland oo dhan waxay dawladdu samaysay 25 xarumood oo lagu daaweeyo shuban biyoodka daran oo laga hirgeliyay gobollada Puntland waxaana lagu daaweeyey 12,840 qof waxaana waqtigii abaaraha la qaybiyey 329,000 oo kit oo faayadhowr ah loona qaybiyey dadkii ay abaaruhu saameeyeen sidoo kale waxay 57 mitrig tan oo daawooyin iyo nafaqaha loo qaybiyey dhammaan xarumaha caafimaadka dalka waxay dawladdu samaysay 361 xarumood oo lagu nafaqeeyey dad gaaraya 171,268 qof dawladdu waxay ka furtay 4 isbitaal ee kala Qardho, Baran, Dhahar iyo Eyl xarumo lagu daaweeyo nafaqada daran ee liidata oo xanuunka wadata gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn waxaa laga furay 20 xarumood oo hooyada iyo dhallaanka lagu daryeelo waxaana ka faa'iideystay 24,718 caruur iyo dumar ah sidoo kale waxaa la daaweeyey
laga daaweeyey cudurka duumada 80,000 oo qoys iyo 377 qof oo laga daaweeyey cudurka HIV/AIDS-ka oo qaata daawooyin joogto ah iyo 102 MCH oo la geeyey qalabka baaritaanka cudurka HIV/AIDS iyo daawooyin beeraha iyo waraabka mudanayaal iyo marwooyin beeruhu waa waxa kaliya oo u bedeli kara dadka xoolihii dhaafay inay ku noolaadaan si aysan u noqon qaxooti hay'adaha dowladsada sidaa daraaddeed dowladdu waxay ka fulisay barnaamijka kor u qaadidda beeraha gobollada mudug iyo sanaag waxaana ka faa'iidaystay beeraley gaaraysa 200 sidoo kale 680 qoys oo iyagana ka faa'iidaystay muruqmaal waxa la yidhahda cash for work sidoo kale 200 oo beeraleyda danyarta ah ayaa ka faa'iidaystay kabid dhaqaale waxa loo yaqaano cash relief oo la siiyey dowladdu waxay ku guulaysatay in ay keento qalab casri ah oo yada design jet kaasoo lagu daabacayo dhammaan sawir khariideedka lagu muujiyo maabka ee ay u baahan tahay wasaaradda beeruhu iyo guud ahaan dowladda Puntland dowladdu waxay sahminta ka hortagga ayaxa Desert Worker Survey ku tagtay gobollada Sool, Sanaag, Karkaar, Highland, Bari iyo Nugaal sahmintaasi waxay kaloo ku saabsanay baadigoobka dulinka aafada ah ee dhammeeya ama waxyeeleeya beeraha iyo daaqa dhulka ku yaal dowladdu waxay dhammaystirtay sharciga ku dhaqanka dhulbeereedka iyo shahaadada lahaanshaha dhulka taas oo laga ansixiyey labada gole ee dowladda Puntland dowladdu waxay hubisay badqabka cuntada iyo sharaabka waxayna qabatay 556 kartoon oo dhaafay waqtigii isticmaalka waana la gubay waxay kaloo dowladdu gashay heshiisyo dhanka kor u qaadidda iyo tayeynta beeraleyda danyarta ah kaasoo soconaya muddo 4 sano arrimaha deegaanka mudanayaal ilaalinta deegaanka daaqsinta iyo samaynta seerooyin daaqsimeedku iyo samaynta biyo-xireennadu waa siyaasadda dowladda waxay dowladdu ansixisay siyaasadda maaraynta daaqa sharciga ilaalinta deegaanka iyo siyaasadda maaraynta qashinka mudanayaal dowladdu waxay soo gabagabaysay daraasad lagu sameeyey 7 goobood oo biyo-xireenno ah oo deegaanada ah laasada waco dharoor raydable xamxamaa uurjire doosaanli oo ka tirsan gobollada degmooyinka isku shuban jariiban garoowe gaalkacyo iyo rakaraaxo waxay dowladdu hadda dhammaysay qaabka ugu wanaagsan ee lagu hakin karo biyaha roobka ee ku shumaya badweynta hindiya arrimaha cadaaladda dowladdu waxay samaysay kor u qaadidda cadaaladda maxkamadaha xabsiyada iyo garsoor dhaqanka waxayna dhiirigelisay tartanka qur-aanka kariimka ee heer Puntland oo ay ka qayb galeen 90 arday waxayna iclaamisay dhalashada bisha Ramadaan iyo sidoo kale faafinta xeerka ilaalinta carruurta iyo xeerka la dagaalanka gudniinka fircooniga dowladdu waxay qabatay shir looga hadlaayo dardargelinta iyo dhaqangelinta xeerka kursiga ee ka soo qayb galeen laamaha cadaaladda maxkamadaha taliska ciidanka booliiska iyo hay'adaha kale ee dowladda sidoo kale waxay dowladdu ansixisay xeer hoosaad garsoorka Puntland waxayna dowladdu sugtay isla markaana kormeer ku samaysay 26 ciyaalka ah ee lagu qabtay al-shabaabkii soo weeraray Puntland gaar ahaan Suuj iyo Garmaal oo lagu wareejiyay hay'adda UNICEF si loo dhaqan celiyo waxayna ku sugan yihiin xaruntii dhaqan celinta oo ay dowladdu ku hayso kormeer joogto ah mudanayaal waxay dowladdu hadda isma ka wada xabsiga gaalkacyo sidoo kale waxaa loo sameeyey xabsiga weyn ee Garoowe iskuulka farsamada gacanta oo maxaabiista lagu baro samaynta agabka guryaha alxanka iyo aqoonta dhismaha waxaa loo sameeyey afarta xabsi ee Garoowe Boosaaso Qardho iyo Gaalkacyo beero ay ku maareeyaan baahida khudaartii ay soo iibsan jireen dekadaha dowladdu waxay ku qabatay Garoowe iyo Boosaaso shir ku saabsan amniga badaha oo isugu yimaadeen dhammaan hay'adaha iyo wasaaradaha ay shaqadaasi ka dhaxayso shirkaas ay ka soo qayb galeen ay ka soo baxeen qorshayaal muhiim ah oo lagu xakameynayo amniga badaha waxay dowladdu xoog ku soo furatay markabkii ganacsatada u rarnaa ee ay burcadbadeedu afduubteen waxayna ku celisay gacantii ganacsatada ilaad markabka waxayna horgeysay cadaaladda 3 nin oo ka mid ah afduubayaashii markabkaas iyadoo laga duulayo qorshe hawleedka dowladda waxay wasaaraddu dhammaan marsooyinka xeebaha geysay shaqaale laga bilaabo Garacad ilaa Laas Qoray waxayna tababar u dirtay dibadda shaqaalaha marsooyinka Puntland
sidoo kale waxay dawladdu go'aamisay inta lagu jiro bisha Ramadaan in dekadu shaqayso habeenkii maadaama shaqaaluhu maalinta ay soo yihiin waxaana la dhameystiray dhismihii xaruntii weynay ee wasaaradda dekada garoomada Puntland mudanayaal iyo marwooyin dawladdu waxay ku xirtay garoonka Boosaaso diyaarado caalami ah oo u kala goosho Dubai iyo Boosaaso 4 jeer usbuucii waxaa la dhameystiray qalabka solar energy-ga ee garoonka Boosaaso oo ku filan hawl socodsiinta terminalka waxaa la keenay garoonka Boosaaso 2 gaari oo degdemis ah oo waaweyn iyo shaybaar caalami ah oo lagu hubinayo tayada agabka lagu dhisayo garoomada Garowe iyo Gaalkacyo sidoo kale mudanayaal waxaa meel gabagaba maraya dhismaha garoonka caasimadda Garowe ee caalamiga ah anagoo rajaynayna haddii alla idmo inuu ku dhammaado 3 bilood ee soo socota waxaana hadda dhisan walkiiba 80 kaweygii ay diyaaraduhu ku ordaan waxaana gabagaba ku dhow dhismaha xarunta kaydka shidaalka ee garoonka Garowe iyadoo dawladdu heshiis la gashay injineer caalami ah si u hubiyaan in dhismaha garoonku waafaqsan yahay heerka caalamiga ah ee shahaadooyinka garoomada lagu bixiyo waxayna dawladdu dayactir joogta ku haysaa garoonka Konoko oo ah kan hadda inoo shaqeeya mudanayaal waxay dawladdu dhagax dhigtay shaqadiisina bilaabatay garoonka cusub ee Gaalkacyo oo ah garoon casri ah waxaana kor loo qaaday tababarka shaqaalaha amniga garoonka aviation security waxaana kaloo la adkeeyay baraha baarista arrimaha ganacsiga mudanayaal sida aad ogsoon tihiin ganacsigu waa waxa kaliya ee aan tartan ku gali karno sidaa darteed dawladdu waxay dib u habeyn ku samaysay sharciga shatiyada ganacsiga ee law number 14 si uu la jaanqaado ganacsiga adduunka sidoo kale dawladdu waxay daahfurtay hab casri ah oo loo bixin doono shatiyada ganacsiga habkaas oo ah database la gelinayo xogta ganacsiga waxaana shahaadada ganacsiga laga dhigay electronic sida caalamka oo kale dawladdu waxay la gashay safgarad shirkado Chinese iyo masaari ah oo maalgashadayaal ah iyadoo dawladdu la kulantay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Masar wuxuuna soo diray wafdi ganacsato iyo maalgashato isugu jira oo arkay fursadaha ganacsi ee ka jira Puntland insha Allah dawladdu waxay dhawaan furaysaa kastamka Turdibi kadib markii la dhameeyay dhammaan heshiisyadii loo baahnaa ee Puntland iyo Ethiopia sidoo kale dawladdu waxay la gashay heshiis dawlad deegaanka Ethiopia heshiiskaas oo ku saabsan isku xirka ganacsatada labada maamul ee wax la soo daga waxaana dhoofsada iyo xoojinta adeegsiga dekada Boosaaso sidoo kale dawladdu waxay u samaysay martiqaad ganacsato dawladaha Oman Masar iyo China waxaana isla gaarnay isafgaradyo la taaban karo iyo inay warshadahooda dalka ka howlgeliyaan sida shirkadda Som China oo laga leeyahay dalka Shiinaha arrimaha shaqaalaha iyo ciyaaraha mudanayaal iyo marwooyin waxay dawladdu markii ugu horeysay ka bilowday horyaalka naadiyada kubadda cagta magaalooyinka Puntland oo dhan waxaana ka soo qayb galay 9 kooxood iyo 243 ciyaartooy mudanayaal waxay dawladdu uga gol leedahay hirgelinta horyaalkan in laga ilaaliyo dhalinteena falalka xubno ay ka mid yihiin taariikhda xagjirnimada qabyaaladda iyo in la dhiirigeliyo isdhexgalka bulshada dawladdu waxay qabatay shirar dhalinyaro oo heer Puntland ah oo isugu yimaadeen 300 oo dhalinyaro ah kuwaas oo matalaya 9 urur dhalinyaro ee dhammaan gobolada dawladda Puntland waxaana ka soo qayb galay maamulada Soomaaliya gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka arrimaha shaqaalaha mudanayaal waxay dawladdu bilowday wajiga labaad ee tirakoobka shaqaalaha dawladda Puntland oo meel fiican maraya waxaana soo tirakoobay ilaa hadda shaqaalaha gobolada Bari Karkaar Gardafuuy Mudug iyo Sanaag sidoo kale waxay dawladdu la gashay heshiis jaamacadaha dalalka Tanzania Ethiopia iyo Kenya si ay u siiyaan shaqaalaheena aqoon kororsi xirfado iyo tababaro gaar ah dawladdu waxay shaqaale gaaraya 390 u samaysay aqoonta ICT-ga ee la socodka iyo wada shaqaynta laamaha dawladda arrimaha qorshaynta iyo xiriirka caalamiga mudanayaal iyo marwooyin dawladdu waxay daahfurtay horumarinta qorshaha 3 sano ee Puntland waxa loo yaqaan 3-year development plan kaas oo lagu soo koobay baahiyaha Puntland ee dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha arrimaha bulshada wax soo saarka cadaaladda amniga iyo hagaajinta maamulka dawladda dawladdu waxay fulisay madasha horumarinta Puntland Development Forum oo ah nidaam loogu talagalay in la isku xiro hay'adaha dawladda hay'adaha aan dawliga ahayn hay'adaha qaramada midoobay bulshada rayidka iyo hay'adaha gaarka loo leeyahay ee isku shaqada ah
waxay wasaaraddu mixshir oo waaweyn u qabatay qaybaha isku shaqada ah si la isugu xiro ayna uga wada shaqeeyaan fulinta himilooyinka horumarineed ee Puntland. dowladdu waxay dhammaystirtay siyaasadda kormeerka iyo qiimaynta waxa loo yaqaan M&E-ga taasoo hadafkeedu yahay dabagalka mashaariicda socota iyo qiimaynta waxtarkii mashaariicda dhammaatay. siyaasaddan oo ah mid wax weyn ka tari doonta habka fulinta mashaariicda. dowladdu waxay bilowday qiimaynta waxyeeladii abaarihii ka dhacay Puntland iyo saamaynta qorshaha soo kabashada iyo adkaysiga abaarta ama loo yaqaan Early Recovery and Resilience. hadafka qorshahaas waa sidii Puntland u samayn lahayd qorshe xal waara lagu raadinayo abaaraha ku soo noqnoqday. dowladdu waxay dubahabayn ku samaysay dhammaan waaxyaha wasaaradaha waxayna soo saartay xogo muhiim ah oo dhinacyada statistikada ah sida warbixinta dhalinyarada Puntland taasoo lagu ogaanayo caqabadaha haysta dhalinyarada sida tahriibka, shaqo la'aanta, waxbarashada iyo wixii la mid ah, iyo sidoo kale warbixinno faahfaahsan oo ku saabsan Puntland sida dhulka, dadka, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, dhalashada, dhimashada iyo sicirka. mudanayaal Puntland waxay si weyn isugu hawshay xoojinta xiriirka caalamiga waxaana soo booqday 6 bilood ee u dambeeyay safiirada dowladaha Norway, Finland, Turkiga, Masaarida iyo fuud ka socotay UN-ka oo ay ka mid yihiin madaxda xuquuqul insaanka adduunka UNDP, OCHA, FAO, UN Habitat, UNFPA, UNICEF, madaxa EU Soomaaliya. sidoo kale waxaa Puntland soo booqday wufuud ka socotay wadamada China, Oman, Sacuudiga iyo Imaaraadka. isla markaana waxaanu u tagnay xoojinta xiriirka caalamka dalalka Finland, Norway, Sweden, Kenya, Djibouti, China iyo Ethiopia. arrimaha haweenka mudanayaal iyo marwooyin dowladdu waxay dhammaystirtay siyaasadda daryeelka carruurta, dhammaystirka qorshaha taabagelinta jinsiga, dhammaystirka qorshaha raadinta qoondada miisaaniyadda haweenka, dhammaystirka qabyo-qoraalka bilowga siyaasadda guud ee carruurta iyo dhammaystirka qabyo-qoraalka bilowga siyaasadda ka hortagga tacadiyada. dowladdu waxay hirgelisay mashaariic horumarineed ee haweenka iyo carruurta waxayna ka wadaa gobollada Sanaag, Nugaal, Gardafuul, Karkaar, Bari, Sool iyo Mudug. waxaana wasaaraddu dib u dejin dad gaaraya 300 oo qoys oo dadka abaaruhu dhaafeen. dowladdu waxay gacanta ku haysaa taakulaynta qoysaskii tacadiyadu ku dhaceen iyo daryeel gaar ah oo loo sameeyey 280 carruur ah oo qoysaskoodii abaaruhu saameeyeen oo ku sugan Taleex, Dhahar, Gaalkacyo iyo Buuhoodle. dowladdu waxay kor u qaaday kobcinta aqoonta haweenka gaar ahaan 42 haween ah oo loo tababaray dhinacyada kale ah farsamada gacanta, barashada samaynta ganacsiga yaryar iyo barashada ka hortagga tacadiyada haweenka iyo kor u qaadidda aqoonta shaqaalaha. mudanayaal waxaa dhowaan xariga laga talayaa dhismo cusub oo ay leedahay wasaaradda haweenku oo ah dhismo cusub oo casri ah. sidoo kale wasaaraddu waxay tababaraysaa dhalinyaro soo dhammaysatay jaamacadaha oo gaaraya 42 arday oo ka kala yimid 9 gobol. arrimaha waxbarashada mudanayaal iyo marwooyin sida aad la socotaan waxaa waajib dastuuri in dowladdu waxbarasho tayaysan gaarsiiso dhammaan deegaanada Puntland taasoo ay u xilsaaran tahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. waxaa laga dhisay 8 iskuul hoose dhexe degmooyinka Boosaaso, Hadaftimo, Qardho, Buurtile, Saaxo iyo Qarxis. waxaa la dhisay 5 dugsi sare oo laga dhisay Garowe, Tukarraq, Bareela iyo Shaxda. waxaa 200 oo qol lagu kordhiyey iskuulo badan oo ku yaala gobollada Nugaal, Bari, Karkaar, Highland, Sanaag, Cayn, Mudug iyo Sool. waxaa dayactir lagu sameeyey 45 iskuul oo ku yaala dhammaan Puntland. waxay dowladdu qalabaysay in ka badan 250 iskuul kuwaas oo la siiyey agabyada waxbarashada oo dhammaystiran. waxay dowladdu gabagabaysay manaahijta Puntland. waxaa la sameeyey muqarrarka dugsiga hoose dhexe kaasoo ka hirgalay dhammaan iskuulada hoose dhexe ee Puntland. waxaa dib loo habeeyey waxaa lagu kordhiyey muqarrarka dugsiga sare wuxuuna dhaqan galayaa bisha August 2017. waxaa gacanta lagu hayaa muqarrarka farsamada gacanta oo ah meesha maanta dalkeennu aadka ugu baahan yahay si loo helo arday xirfad dhammaystiran leh taasoo haddeer maraysa meel gabagaba ah. waxay dowladdu shaqaalaysiisay sanadkan macallimiin cusub oo gaaraya 922 macallin. arrintan oo ka dhigaysa guud ahaan macallimiinta Puntland 2117 oo hela xuquuqdooda iyo mushaharkooda. sidoo kale waxaa lagu tababaray 1200 oo macallin muqarrarka cusub.
waxaana si joogto ah loogu sameeyaa kormeer 500 oo ah xarumaha waxbarashada ee fogfog. waxaa u fariistay imtixaankii sanadkan 12,687 arday oo ah fasalada 12aad ee 8aad. waxaan lagu soo kordhiyay imtixaanka sanadkan imtixaanka indhoolayaasha, dhagoolayaasha iyo curyaamada Puntland. waxay dawladdu deeqa waxbarasho u dirtay sanadka 2017 arday gaaraya 350 dalka dibadiisa sida Suudaan, Ethiopia, China, Russia, Masar iyo India. dalka gudihiisana waxay waxbarasho bilaash siisay 150 arday ee heer jaamacadeed iyo 5,000 oo arday danyar ah ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare. waxay dawladdu sidoo kale dhamaystirtay xeerka tacliinta sare ee Puntland waxaana la sameeyay xafiiska tayadhowrka ardayda galaysa jaamacadaha caalamka iyo tayeynta shaqaalaha wasaaradda waxaana la geeyay dalalka Suudaan, Kenya iyo Malawi. dawladdu waxay tababaro iyo khibrad ka siisay maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira dhanka shuruucda, siyaasadaha waxbarashada, manaahijta, tababarada macallimiinta, imtixaanaadka, maamulka goobaha waxbarashada iyo qaab dhismeedka wasaaradda. waxaana ka mid ahaa maamuladaasi Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. hawlaha guud iyo gaadiidka mudanayaal iyo marwooyin waxay wasaaraddu tirakoob joogto ah ku haysaa gaadiidka dawladda ee ga'daada si looga fogaado in lagu takrifasho gaadiidka ummadda hantideeda lagu soo gaday. waxaana hubin iyo dayactir mar walba ay ku haysaa gaadiidkaas. waxaa dawladda Puntland yeelatay markii ugu horeysay qalabka birta culus oo kala duwan oo gaaraya 35 haddana ka hawlgalaya wadooyinka Ceeldaahir, Ceergaabo iyo Garowe Gaalkacyo. waxay dawladdu dhamaystirtay shuruucda dhismayaasha iyo tayada dhismaha guryaha shacabku dhisayaan waxa loo yaqaano building standard regulations. waxay dawladdu gacanta ku haysaa nidaamka siyaasadda dhulka Puntland Government Land Policy iyo shuruucda magaalooyinka waxa loo yaqaano town plan. waxaa sanadkan 2017 hay'adda qandaraas bixintu bixisay qandaraasyo gaaraya 225 mashruuc oo isugu jira dhismayaal iyo badeecado kala duwan. dhismaha wadada Garowe Gaalkacyo mudanayaal iyo marwooyin dawladda Puntland iyo shirkadda Isxilqaan waxay wada saxiixdeen heshiiskii dhismaha jidka Garowe Gaalkacyo taariikhdu markay ahayd 1 bishii Afraad 2017. waxaana hirgal ilaa hadda dhismaha wadada macmalka gaadiidku qaadayo oo 40 kiiloomitir u dhaxeeya Buurtille iyo Xarfo. hay'addu waxay wadaa daraasad dib loogu qiimeynayo jidka Jalam iyo Xarfo si loo ogaado dhaawaca roobku wadada gaarsiiyeen. waxaa dayactir degdeg ah lagu sameeyay buundada ay roobku waxyeeleeyeen ee jidka Kalabeer iyo Jalam. waxaa la geeyay Buurtille agabkii shaybaarka ee mashruuca dhismaha jidka Garowe Gaalkacyo lagu hirgelin lahaa. xanaanada xoolaha mudanayaal iyo marwooyin waxaa dhab ah in dalkeennu ku tiirsan yahay xoolaha nool. waxaana xaqiiq ah abaartii sima inay u geysatay xoolaheenna daano weyn. sidaa darteed dawladdu waxay u samaysay daaweyn iyo gurmadka degdega ah muddada 6 bilood ee la soo dhaafay xoolo gaaraya 5 milyan oo neef dhammaan gobollada Puntland. waxay dawladdu kor u qaaday dhoofinta xoolaha inkastoo abaartu ay hoos u dhigeen suuqyo badanna aan la helinin. waxay dawladdu dhistay xarunta dhexe ee wasaaradda oo ka kooban 22 xafiis iyo bakhaaro kaydka daawada ah iyadoo uu si rasmi ah u dhammaaday dhisidda iyo qalabaynta shaybaarkii dhexe ee loogu talagalay baaritaanka iyo dabagalka cudurrada ku dhaca xoolaha. dawladdu waxay dhistay isla markaana qalabaysay xarunta caafimaadka xoolaha ee degmada Badhan. sidoo kale waxaa la tayeeyay shaqaalaha shaybaarka dhexe ee Gaalkacyo waxaana looga faa'iideeyay aqoontaas dhammaan madaxqaybeedyada wasaaradda ee gobollada Cayn, Mudug, Sool, Highland, Sanaag iyo Nugaal. dawladdu waxay dhamaystirtay dhammaan shuruucda iyo xeerarka xanaanada xoolaha waxayna soo saartay siyaasadda xanaanada xoolaha, siyaasadda ka hortagga iyo ciribtirka cudurka jadeecada iyo qabyo qoraalka xeerka maxjarka iyo maamulistooda. waxayna wasaaraddu ka qayb gashay shirar muhiim ah ee ku aadan dhoofinta xoolaha Puntland. kalluumaysiga mudanayaal iyo marwooyin dawladdu waxay sahmin ku samaysay degmooyinka xeebaha ah ee la filayo in laga dhiso dekado yaryar oo kalluumaysi sida Garaacad iyo Eyn. waxaa la keenay khubaro ka hirgelinaysa suuqyo kalluumaysi oo casri ah magaalada Boosaaso iyo magaalooyinka Qarno iyo Gaalkacyo si ay uga faa'iideystaan kalluumaysatadu. waxaa soolar iyo qalabka lagu ilaaliyo nadaafadda kalluunka lagu xiray warshadaha yaryar ee Garaacad, Durduri, Bandarbayla, Barmadoobe, Xaafuun, Baargaal iyo Eyn. dawladdu waxay meel marisay sharciyada iyo siyaasadda kalluumaysiga waxaana markii ugu horeysay
dekeda la keenay maraakiib kalluumaysi si loo siiyo sharci waxaana la saaray kormeerayaal ilaaliya waxayna ay kormeerayaal ilaaliya waxa ay qaadanayaan iyo qalabka ay ku kalluumaysanayaan waxaa la tayeeyay iskaashooyin kalluumaysi ee 10 degmo xeebeed waxaa kor loo qaaday ilaalinta xeebaha iyo la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah waxaana howlgallo joogto ah ku jira ciidamada ilaalinta badda ee BNBF iyo booliiska waxaa kor loo qaaday dakhliga ka soo xarooda kalluumaysiga waxaana la gaarsiiyey meeshii ugu sarreysay intii Puntland ay jirtay oo ah 1 milyan iyo 800 kun oo dollar meeshuu hore uga ahaan jiray 64 kun oo dollar oo kaliya sanadkii arrimaha dastuurka iyo federaalka mudanayaal iyo marwooyin waxaa maanta ugu weyn ee hor yaalla dowladda federaalka Soomaaliya waa dhamaystirka dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya sidaa daraadeed waxay dowladdu ka qayb qaadatay shirar looga hadlayo helida dastuur qaran oo dhamaystiran si looga baxo dastuurka hadda jira ee ku meel gaarka ah waxaa bisha Juulaay lagu qaban doonaa caasimadda Puntland ee Garowe shir looga doodi doono dhamaystirka dastuurka dowladda federaalka si dadkeenu ula socdo meesha uu marayo dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya arrimaha federaalka mudanayaal sida aan la socono dalku hadda wuxuu u jahaystay hirgelinta hanaanka federaalka sida awgeed dowladda Puntland waxay ka rajaynaysaa madaxda cusub ee hadda hoggaanka haya ee Puntland ku soo dhaweysay niyad sami ballaaran inay taabageliyaan hanaanka federaalka oo dhab ah lagana fogaado aqliyadda dowladda dhexe oo xoog badan oo ah tii ay ku burburtay Soomaaliya arrimaha xisbiyada badan ee Puntland mudanayaal dowladdu waxay ku dhawaaqday in la furan karo ururada siyaasadda waxay diyaarisay dhammaan macluumaadkii looga baahnaa furashada ururada siyaasadda Puntland gudaheeda waxayna u sheegtay beesha caalamka ku wada daneeya barnaamijka dimuqraadiyeynta inay naga taageeraan nidaamka xisbiyada badan ee Puntland waxay dowladdu warbaahinta gudaha si joogto ah uga sii deynaysay muddo dheer fariimo ku aadan faa'iidooyinka furashada xisbiyada ururada siyaasadda mudanayaal sida aad la socotaan Puntland waa meesha kaliya ay maanta ka hirgeli karto xisbiyo badan sidaa awgeed waxay dowladdu ku boorinaysaa in axsaabta badan loo dhaqaaqo sidaan marar badan ku celcelinay arrimaha biyaha Puntland mudanayaal waxaa biyadhaan loo sameeyey intii u dhaxaysay bishii Oktoobar 2016 ilaa May 2017 dadka reer Puntland iyo dadka kale ee Soomaaliyeed oo ka yimid gobolada kale ee gobolada dhexe Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida waxayna dowladdu ibsatay booyado loogu dhaamiyo dadka waxaa la dayactiray dhammaan ceelasha biyaha Puntland waxaa loo sameeyey solar system waxaa la sameeyey ceelal cusub waxaana la daweeyey ceelasha ee laga cabo oo badan sidoo kale waxay dowladdu muddo kooban ku qoday ceelal gaaraya 7 maadaama lagu jiray waqti adag oo abaara waxaana laga kala qoday ceelashaasi deegaamada xarxaarka xaradhanka Cawsane Carmo booda cadde godob jiraan iyo dhagaxay cadde waxaana hadda socda oo dhawaan shaqo galaya ceelal gaaraya 8 oo laga qodayo deegaamada kala ah Xiriiro Xabaal Reer Balididin kala dhacda Karin Dabeel Weyn Garowe iyo mid kale oo laga qodayo xarxaarka waxay dowladdu hadda ka wadaa biyogelin degmooyinka Dardaare iyo Ufayn oo bari ah iyo Eyl iyo Buurtille oo nugaal ah isla markaa waxay hay'adda Baasaweyn dayactirtay 30 ceel waqtigii abaarta waxaana dowladdu dhaamisay hay'addu dhaamisay 6,000 oo booyadood oo ay dhaamiyeen 12 booyadood ee dowladdu u iibisay abaaraha dowladdu waxay diyaarisay sharciyada biyaha Puntland oo hor yaalla golayaasha dowladda sida sharciga dib u eegista siyaasadda biyaha dalka iyo diyaarinta siyaasadda tamarta mudanayaal waxay dowladdu hadda wadaa sahminta ceelal cusub oo gaaraya 19 ceel oo ay ka mid yihiin deegaamada Kuuriye Beyra Xero Jaalle Warguduud Sheerbi Meeradeyn Rako ceel la helay Afdug Weyn Horofadhi Wirwid Xubabays Unuun Qoraxaad Hoodaa Baqbaq iyo Tuulo Horoglo heshiisyada caalamiga ah mudanayaal sida aad la socotaan dhawaan waxay dowladdu la gashay shirkadda CCECC ee laga leeyahay dalka China heshiis ku saabsan dhismaha garoonka Gaalkacyo iyo wadada Eyl Garowe waxaana bilownay mudanayaal siyaasad cusub oo ah inaan khayraadkeena ku dhisano kaabayaasha dhaqaalaha dalkeena heshiiskaasina wuxuu hor yaallaa golaha baarlamaanka waxaana socda diyaarinta qalabkii ay shirkaddu dhismaha ku bilaabi lahayd mudanayaal waxay kaloo dowladdu heshiis ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta la gashay shirkadda DP World
oo nuxurkiisu yahay horumarinta dekedda Boosaaso oo lagu samaynayo dekedda ballaarin iyo casriyeyn waxaana dekedda lagu kordhin doonaa ilaa 450 mitir oo ballac ah iyadoo la dayactiri doono qaybta hadda shaqaysa mashruucan waxaa ku baxaya lacag dhan 336 milyan oo dollar lacagtaas oo wajiga koowaad ee dekedda la gelin doono 200 oo milyan oo dollar halka wajiga labaadna la gelin doono lacag dhan 136 milyan oo dollar waxaana kaloo heshiiskani dhigayaa in dhismaha dekedda lagu dhammaystiro muddo 24 bilood gudahooda oo ka bilaabanaysa maalinta heshiiska la saxiixay waxaana dhowaan la hor keenaya heshiiskaasi golaha baarlamaanka ee Puntland gabagabadii wadana gudoomiyay mudanayaal shacabka reer Puntland waxaan u soo jeedinayaa inay dhowraan midnimadooda iyo wadajirkooda una diyaar garoobaan la dagaalka aan ku qaadayno cadowga ku soo duulay dhulkooda oo argagixisada ah golaha wakiilada Puntland waxaan ku bogaadinayaa shaqooyinkooda ay dalkooda u hayaan waxaana ku boorinayaa inay sii xoojiyaan ugu dambeyntii mudane gudoomiye iyo mudanayaal waxaan rajaynayaa in kalfadhigan uu noqdo mid meel maraya ajandayaasha iyo shaqooyinka hor yaalla kuna dhammaada guul waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa in kalfadhigii 39 ee golaha wakiilada Puntland uu furan yahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi